السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتو عن أو ونكسر دمان أصحابتا نجلس عطا بيت كأن كلنا فيسبوك أي جالير فيديو سنتر يصير كلته channel كأن كلنا يوتيوب كأسنا جالير ميديا. haddaba maanta barnaamijkan kooban waxaan ku falanqeyn doonaa doorashadii xalaasha ahayd ee ka dhacday doorashadii xaaraanta ahayd oo gacan kurumiska ahayd ee maanta ka dhacday magaalada Baydhabo oo lagu doortay madaxweynihii hore u doornaa oo laga dhigay inuu yahay madaxweyne la dooranayo ru'aantii wax walba ka soo baxaba طبعا marka lagu dhawaaqay inuu yahay madaxweyne oo madaxweyne u noqon doona maamulka Koonfur Galbeed ninka lagu magacaabo Cabdicaziz Lafta Gareen falcelintii ay ka bixiyeen shacabka ku nool deegaanada Koonfur Galbeed waxay noqotay saa u jeedaan madaxweyne ma jiro oo maalinkii la doortay hore laga wada mucaaradayo hal doorto oo bilooyin ha shaqeeyo ama sanadooyin ha shaqeeyo qaladaadii uu galay ha soo baxaan tusaale hadda madaxweyne Farmaajo habeenkii ugu horeeyay ee la dooranayay madaxweynaha qaranka Soomaaliya dabcan habeenkii ugu horeeyay la dooranayay guud ahaan geega Soomaaliya habeenkaas lagama seexan min degmo gobol ilaa tuulo Farmaajo iigeeya ka socotay waawada ogeedeen laakiin maanta waxa dhacay cagsigeeda Cabdicaziz Lafta Gareen marka lagu dhawaaqay inuu madaxweyne yahay daqiiqada kadib waxa isbedelay jawiga deegaanada Koonfur Galbeed dhammaan shacabku waxay bilaabeen Cabdicaziz Lafta Gareen iga qariya arboorsideedii ii soo qaada arjoodarigeega ii soo qaada argogashayda ii soo laaba arbaawarku iga buuxsamin kala yaaci kala orod iyo kala hada ka dhacay meesha kulay maalmaha soo socdo ma saadaalin karno waxa xiga doona haddii maalintii ugu horeysaan ay tahay dabcan saadaalin kala ma u baahnaba isha marqaatidin ah كل رير كفر قلبي وحالله جلاس بيا الله كانه بولكيتي الله كانه كل قال الله كنيني كابسول الله كلاته بولكيتي جلاس بيا ما نقول لك قراه هذا بقى أرنو قافك بولكيتي قاس يقول لك دونا